بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال هدي أدوسو جوجتين تاريخ ده مدحوينا حسن الشيخ محمود أو عسكرتي مدحولت كيسهوري عسكرتي كينيا على عدة لقول له أسجود يا بختي قاضي ما أنت نوحي إنه وجهنا مدحوينا حسن الشيخ محمود أو مركله إسقوا كم وقته خشوع سيدو كلنا كم وقته مروجو الماين يا أوعد مودو إنه اللي أنت اسكتريه وفوررا أو الركوعسن meydka boqoradii Ingiriiska ee dhawaan ku baqtiday dalkaasi Ingiriiska ee UK maanta daawadayaal waxa ay ugu yeereen jinaaso ayay markaasi u sameeyeen dawladda Ingiriiska madax kala gedisan oo caalamka ayaana ka soo qayb gashay walow madaxda ama hogaamiyaasha wadamada islaamka ah ay mas'uuliyad weyn saaran tahay habka ay u dhaqmayaan ay tahay in ay aad uga feejignaadaan maadaama waxaan waa adduun dawladahan iyo waxyaabahan oo dhan waa ficilo وإراده وحيابه كمذا كونك إلهي أننا نحن نحن بشر كإلهي ما دام أنه إلهي قنصنا هاي دد إسلام نهاي دينتنا صوبنا قنصنا هاي وهجامياش إسلام ك تلابون كي كل غاقيان أو إسلام قال هذا كل الجلية إني كفر سلام يا فيعان تيو أي شرط دعوة ضيال أيها هدنا إن إلهي وحو عقلي يقرشد نوسي وأن كوكرنا الحمد لله وأنا مهد علينا نصيب كنا نوسي دد إسلامنا أهانه وإنا wax badan aan ka feejignaano waxa la arkay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii koowaad jinaasada intuu ka qayb galay kadib meel kaniisada ayaa waliba lagu jiraa oo hawshan lagu waxeynaya kadibna waxa uu soo muuqday isagoo daawadayaal qiiro ay ka muuqato qiiro madaxana gibladana raaricinaya dhinacaas oo madaxweynaha Faransiiska ayaa jooga Emmanuel Macron ninka xataa gaalka ah sida ma sameeyay madaxweynuhu yeelay sawirka yani waan qarinay madaxweynaha kale oo Faransiiska ka muuqdo laakiin sidoo giblada uu ma aragtay madaxweynahan waxa weeyaan uu isku muujinayo oo ma aragtay halaga dareemo in waxa weeyaan meel ay ku gubanayso isku leeyahay suu madaxa u roganayo iyo sidoo indhaha u haysto cid u haysata ama roganayso malahan wanaxdin aad u weyn shacabka Soomaaliyeed ayaa qaada dhigay sawiradan meel kaniisada ayaa arrintan ka dhacaysay تيو إلا آدو أما تعسي عين كانوا كلا إن لقى قيب قالوا شكي وين يكون قدام تاي ما دام مدحونه وياه برباريه دلكن عضتك إن قربها تشوجي أو دينت إن داير تلوجا بقى دينت إن كبحان وقاركود وحويان قربها لجود البناء هدي مدحونه هذي وضد كودي كسر تشيدن أو لجود بربارني هدي وبعين كأنه قميو داير بدن بقى باب إن سيلومان ما مركي جوهر السيبا وامي كان يمدد كذي باللوجا sidoo maartay ugu rukuucay oo dhabarka u goday oo isku duleeyay waqtigoodii maanta tana taala maalinta madaxweynaha Masar markii uu la kulmay oo dalka Masar uu booqday madaxu saa u raadiciyay bal Ilaahay baa ku dhaariyay labadaan fiiriya nina caadi u taagay waa ninkii martida loo ahaa ninkii martida ahaana madaxu raadicinaya hadda ninka martida loo yahay waa mujrim weyn oo dad badan oo islaam waxa weeyaan waxba galabsan baabiyay oo Israa'iil iyo Mareykan basaas u ah كيبا كحشودي waxa uu sameeyo Xasan Sheekh Maxamuud isdulay Xasan daahir awayska argagixisada hogaami jiray xisbislaha hogaami jiray intuu ka yaabay wuxuu yiri niyo madaxan dhug ka siinaysid naga jooji madaxan dhug ka siinaysid oo aad Cabdifataax Siisi maalin adiga dhug ka soo siinay hore askarti Kenya niyo nin wax kala garanayo diin yaqaan waa tahay jooji marka anaguna waxaan leenahay madaxweyne madaxan iyo dhabarkan aad dhug ka siinaysid oo foorinaysid Ilaahay uga yaab nin daa tahay nin weyn baa tahay cimri ku dhiman oo waxa weeyaan ama aqli ku dhiman hadda ama daa ku dhiman ma jirto Ilaahay baa wuxuu ku soo siiyay inaad Soomaaliya waddan dhaho barwaaqa oo ummad islaam boqolkiiba boqol sunniyo degan yihiin aad ka noqoto madaxweyne isduleyntan iyo madaxan dhag ka siinaysid naga daanama qabatee rabbigaagana uga baqo waxa weeyaan xukun iyo kursi iyo aakhiro dhinac ku galimayaan wataasaati boqortooyada lagu sheegay kuraasta dahabka ku fadhisay wata maanta naxash bay kaga dambeysay iyo god xabaal baa sugaysa dadka dhan halkaas u noqonayaan marka madana madaxweyne dadkana ha fasahaadin oo waxa weeyaan dadka awalba diinta waxa weeyaan qaarkood iimaanku ku yaraa si fasahaadin oo madaxweynihiini baa forforsanay madaxa dhulka siinayay isdhihin adiguna barnaamijkan inaga jooji rabbigaana ka yaab oo rabbiga ciise meel walba waa taagantahay madaxana waa foorinaysa qarannimada sidaan ma ahan qabna ma ahan weligeedna waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyneedkiisi wax cayn kaanay wax u dhigma toona lagama diiwaan galin bal hal mar waxa ay tusayaan sawir baa ay tusayaan walaalayaal bal fiiriye labada madaxweyne isbarbar dhiga madaxweyne Farmaajo iyo waxa sheegay madaxweyne Xasan Soomaaliya si fudud waxa isku barbar dhigtaan labadan sawir ee isbarbar yaala mid waa 2016 waa meedadkii ceel cadda lagu laayo Kenyaanka ahaa oo inta la baabiyay iyagoo waliba Soomaaliya aan si sharci ah ku soo galin oo si sharci darro ku soo galay dadkeedana iska xasuuqay la baabiyay
oo annaga aysan waxba isku keen dhaamin laba argagixiso iyaguna argagixisay ahaayeen dadka waxay ku sameynayeen marka la eego kuwa laayeen argagixisay ahaayeen maydadkii 2016 la baabiyay madaxweynuhu asaga sida hadda fiidiyoogii hore aad ku soo daawateen ugu rukuucayo waxa weeyaan madaxa waxa weeyaan uu forriyay madaxweyne farmaajo ayaa 2019 wuxuu ka degay Burundi markuu ka degay madaxweynihii ayaa soo dhaweeyay wadankaas markii dambe inuu geeriyoodan jeclahay roog cas ayaa loo fidiyay salaan sharaf baa la siiyay ciidamo madaxweynihii baa ciidankiisii markaas salaamay oo salaanta caynkaan oo isduliyeenta maartay suuxinay ilaahay baa mataqaana adoonku inuu waxa weeyaan maartay oo rukuuco iyo u sujuudo ay banaanta madaxweyne farmaajo waa taagan yahay lagama yaabo wax caynkaas iyo mataqaana inuu sameeyo qabkii diintiisa aan tusayn qabkiisa aan tusayn muuqaalkan la sii sheer gareeyo madaxweyne xasan sheekh waxa leenahay madaxweynihii ka horeeyay kaga dayo wax badan oo madaxweyne naga daa isduleyntan iyo madaxa dhug ka siinaysid